Dalalka Waqooyiga Yurub, gaar ahaan Norway, Sweden iyo Finland ayaa lagu soo waramayaa in ay si ba'an ugu dhufatay duufaanta Johannes, taa oo ay u dheertahay qaboobaha barafka iyo sidoo kale duufaanta oo isbarbar socda, taa oo sababtay dhibaatooyin kala duwan oo soo gaara magaalooyin aad u fara badan oo dalalkan ku yaala. Waxaa lagu soo waramayaa dalka Finland oo ah dalka ugu badan in ay koronto la'aan yihiin ku dhowaad 100,000 oo qoys oo wadankaasi ku nool, kuwa oo ku kala nool ilaa iyo 157 degmo oo wadanka Finland ah. Si taa lamid ah ayaa lagu soo waramayaa dalka Norway in ay saameyn xoogan ku yeelatay duufaanta Johannes oo u dheertahay barafka iyo qabowga, waxaana lagu soo waramayaa in ka badan 4,000 oo qoys ama guryo oo ku yaala dalka Norway, gaar ahaan waqooyigiisa, ay koronto la'aan yihiin, xaalada halis ahna laga soo sheegayo. Sidoo kale wadanka Sweden ayaa isaguna waxa ay saameyn xoogan ku yeelatay duufaanta Johannes, waxaana lagu soo waramayaa in guryo badan oo dalkaasi ku yaala oo lagu qiyaasay ilaa iyo 40,000 oo guri ay koronto la'aan yihiin. Sidoo kalena waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin badan oo dhanka guryaha oo ay ku soo dumayaan geedaha iyo sidoo kale wadooyinka kala duwan ee wadankaasi oo ay xawliga ay ku socoto dabayshan ama duufaanta Johannes ay soo ridayaan geedaha ku yaala wadooyin, kuwa oo lagu soo waramayo ugu yaraan in ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 3 qofood oo uu ku soo dumay geedo ku yaala wadada hareeraheeda. Sidoo kale 40,000 oo qoys oo Swedish ah ayaa lagu soo waramayaa in ay koronto la'aan yihiin, qabow badan, duufaan iyo barafna uu ku hoorayo. Waxaana lagu soo waramayaa hay-adaha kala duwan ee gurmadka degdega ah ee wadamada Finland, Norway iyo sidoo kale Sweden ay hadda ku dadaalayaan sidii ay dadkaasi wax ugu qaban lahaayeen guryahan koronto la'aanta ah oo ay qoysas badan, caruur, haween iyo sidoo kale dad waayeelo ahba ku nool yihiin, ay u heli lahaayeen koronto, maadaama qabowgu uu yahay mid aad u daran, dabayl iyo duufaanna ay barbar socoto, wax kulayl iyo diirimaadna aan ka jirin. Waxaana lagu soo waramayaa in gurmad degdega uu gaarayo gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee ay ku dhufatay duufaanta Johannes ee sida xawliga ah uga socota waqooyiga wadamada Yurub. Norway, Sweden iyo Finland ayay hadda saameynta ugu xoogan ku leedahay, waxaana lagu soo waramayaa in dad badan ay bilaabeen in ay deegaanadaasi ka soo baxaan maadaama xaaladdu ay tahay mid aad u adag. Haddana dhibaatada jirta ayaa ah wadooyinka oo aan si caadi ah loo mari karin maadaama barafka uu ku da'ay uu aad u badan yahay, dabaysha iyo duufaanada socdana ay sidoo kale soo ridayaan baalayaasha iyo geedaha ku yaala wadooyinka hareerahooda, taa oo ay Sweden ku sababtay dhimashada 3 qofood oo uu ku soo dumay geedo ku yaala wadada hareeraheeda. Arrintan ayaa waxaa laga muujinayaa digniino aad u xoogan, waxayna hay-adaha kala duwan ee dalalkan saddexda ah ka dhisan dadka farayaan in ay guryahooda ku nagaadaan. Dowladda iyo sistamka hay-adaha kala duwan ee korontada iyo sidoo kale kuwa gurmadkana ay dadaal aan kala joogsi lahayn ay wadaan. Halka warka kiisa ugu door koran uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.